Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan mar kale cambaareynaya dhibaatada loo geystay dadka reer Koonfur Galbeed ee ku noolaa deegaanada maamulka Somaliland, gaar ahaan magaalada Laascaanood, iyadoona wali ay sii socoto dhibaateynta dadkaasi kuwaas oo loola dhaqmay si ka baxsan dhaqanka Islaamka iyo midka Soomaaliyeed. Waxaan u arkaa in dadkaas iyagoon waxba galabsan lagu xadgudbay sharaftoodii iyo xoolahooda. Qaar ka mid ah dadkaas waxay ku noolaayeen deegaanada Somaliland muddo ka badan 30 sano, waxayna halkaas ku lahaayeen hanti isugu jirta dhulal, ganacsiyo iyo xoolo nool, halka qaarkood iyaga ilmahooda si sharci darro ah loo kala waday. Haddaba anigoo ka duulaya dhibaatadaas bani'aadanimo ee ka dhalatay dadkii sida sharci darrada ah looga soo masaafuriyay, waxaan ugu deeqayaa 10,000 taas oo aan ku wareejin doono guddiga uu magacaabay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dhammaan mas'uuliyiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, heer federaal iyo heer dowlad goboleed, sidoo kalena shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha caalamiga ah in dadkaas lala gaaro gurmad degdeg ah.